qaadin amar yaa haysta markii sharma boy haystaas markii asoo saaray kadib wuxuu ku kalifnaa inuu ilaahayso haystaas la qaadnaa wiigaalis asaga ani ahaan ereyada qortay nin walba kulanti wacan wanaagsan idil haanti basaaxibayaal meel walba aad joogtaan halka iga daawanaysaan waa channelkeena xogbeynta wararka dad ku cusubta channelka subscribe saar like saar muuqaalkan yaa haysta markii sharma boy haystaas markii asoo saaray kadib wuxuu ku kalifnaa inuu ilaahayso haystaas la qaadnaa wiigaalis asaga ani ahaan ereyada qortay nin walba qalkan suusi gaaro dad badan oo aan ogeyn xaqiiqada dhabta ay isku haystaan Idaboos iyo Sharma Boy hadaba daawadayaal waxaan ka hadli doonaa mowduuceena maanta ku saabsan Idaboos iyo Sharma Boy maxaa kala soo dagaalka ka dhex qarxay muxuu yahay laakiin dagaalka ilka casaqeys iyo Sharma Boy xageystii ku maalmihii ugu dambeeyay lagu hadal haynta baraha bulshada lagu hayay sidoo kale Idaboos iyo Sharma Boy dagaalkoodan yaa sababay maxay isku haystaan arrimahaas ayaan ku falanqeyn doonaa saaxiibayaal warbixinteenan waxaan ka codsanaynaa mar labaad inaad channelka subscribe saartad ku soo biirtid like saartid muuqaalkan si uu gaaro dad badan aan ogeyn xaqiiqada dhabta ee ka jirta arrinkan Sharma Boy iyo Idaboos hadaba daawadayaal Idaboos iyo Sharma Boy waxaan saaxiibo iskugu dhow sidoo kale waxay soo warsaajireen heesaha raabka maadaama Muqdisho ay wada joogeen sidoo kalena Idaboos iyo Sharma Boy waxay ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow hadaba Idaboos ayaa cadeeyay xaqiiqada dhabta soo muuqaal ku cadeeyay barihiisa social media ka isticmaala Idaboos hadaba Idaboos waxa soo saaray runtii baraha bulshada keenay ninka lagu magacaabo Sharma Boy maadaama uu kaga soo horeeyay raabkan sidoo kalena Sharma Boy uu sanadadii ugu dambeeyay social media ku dhex jiray hadaba xaqiiqada dhabta la isku haysta raggan ayaa in Idaboos iyo Sharma Boy ay isku qabsadeen hees taasna heestii ay soo wada saareen lacagtii ka soo gashay heestaas fiiska lacagta ka soo galna kadib ay isku qabsadeen Idaboosna saas darteed u cadeeyay in ay ka wada hadlaan oo la soo dhex galo hadaba Idaboos xaguusu ku dambeeyay maadaama laba bilood aan wax muuqaal ah soo duubin muuqaalkii ugu dambeeyay heestii Baxwaariya ay soo wada duubeen sidoo kale Sharma Boy maadaama halkii week buu hees soo saarayo sidoo kale maxaa sidoo kale ma la soo kara daawadayaal Idaboos waa la aftay oo runtii cameramanadii wixii oo dhan waa lagu diray saas darteedna Sharma Boy ayuunbay u wada shaqeynayaan maadaama Sharma Boy uu haysto shacbiyad aad u tiro badan dadka Soomaaliyeed dhalinyartu ha u badnaata ay Sharma Boy wada taageeraan hadaba Sharma Boy sidoo kale qof kasta uu garanaya in shacbiyada TikTok gabi ahaanba isagu shabaqa ku shubtay oo runtaan Idaboos iyo u garaan aan dadka dhalinyarta ee daawada baraha bulshada ama heesaha raabka ciisay aan runtii dadka aanay Idaboos aqoon sidoo kale Idaboos runtii wuxuu yahay fanaan ama fanaaninta soo koray ee xagga raabiska hadaba Sharma Boy oo ahaa sidoo kale fanaaninta raabka ee soo koraya isla waqti xaadiradana ku sugan magaalka Muqdisho ugu shidan soo kale ma la soo karaa Sharma Boy waa wiilka dhalinyarta imika hogaaminaya maadaama ilka casaqeys runtii aanay shacbiyad tiro badan daawan soo kale dagaalka ilka casaqeys iyo Sharma Boy wuxuu ku dambeeyay kadib markii wada hedishin halkaas ay dhex dhigeen dhammaan dadka social media runtii ay halkaas fariin mariyeen dagaalkaasna ay halkaas ku soo gabagabeen maadaama cid uu soo heesay Soomaaliyeed hadaba saaxiibayaal warbixintii iyo xasaasigan halkan igu soo gudbinaynay sidoo kale muuqaalada sirta Idaboos laga soo duubay intaas ay ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal inta ka muuqaal kale oo xiiso leh aan ku wada kulmaynay yaa haysta markii Sharma Boy haystaas markii asoo saaray kadib wuxuu ku kalifnaa inuu ilaahayso haystaas la qaadnaa wiigaalis asaga ani ahaan ereyada